cafis waxaan ugu talagalnay inay sameeyaan saddex qodob culummadu inay sameeyaan waa waayo culummadu Soomaalidu waa u dhagan nugushay mas'uuliyaddii waddanka ka qaldantana culummada laftirkeeda inay kula xisaabtamaan culummada waxaan doonaynaa inaan iskaashano oo abwaaniintii maanta waxaa isugu timid wariyaal halkan abwaan iyo culummo culummadu dadkii ay wacdi gelinayaan abwaaniintuna de gabay wuxuu u sheegaa sheebka damiga wala iska ilaalinaya waa gabay caadi oo rasmi culummadu iyo abwaaniintu wariyaashuna shacabkii la wadaagayaan si xikmadu ku jirto hadda kilibkaad arkaysaan oo kale taa waxaan ka codsanayaa inta midowno ilaa siyaasadaha waa lagu midoobaay inta wariyaasha iyo culummada iyo abwaanada inta midowno oo group samaysano inaan ummadeena wacyi gelino oo aan maalin kasta dib u heshiisiin looga hadlin shirarka iyo xalana iyo meelaha dadka wataan oo ummadda aan si dirinta ah ula hadlo hadii Cabdullaahi oo 4 daqiiqo program ka sameeyay oo 1 milyan oo qof gaaray culummadu way ka sii badan kartaa wali marka waxaan dhihi lahaa oo aan maantay culummo iga balaqaadan in waa riyaan culummada sharafta inaad barnaamijkan cafis qayb ka soo noqotaan oo halgankaan aan ugu talagalnay ummadda qalbigooda inaan isugu soo dhaweyno nala qaadataan oo meeshaan idinku yar noogu timaadaan annaguna aan codkiina gaarsiino ummadda Soomaaliyeed waxa ay soo celiyayna wax kale ma aha waa ummadayda runtii wixii aan u soo bartay in aan u keeno oo aan la wadaago بريتا ugu horeysa leeno diyaariyay sahal howlka sahal leeno diyaariyay casarkii kadib waliba mawduucana uu yahay mawduuc runtii aan doortay mawduuc aan bilow ahayn laakiin aan soo tijaabiyay mawduuca cafi walaalka inay ummadda Soomaaliyeed dhamaantooda iyo aqoon-yahanada oo annaga aan ka mid nahay ay ka hadlaan barnaamijka cafis maalin walba inuu noqdo maalin cafis ah waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed inay isdajiyaan maanta ma noqon doonto maalintii ugu dambeysay oo lagu qabto cafi walaalka ama barnaamij cafis magaalada Muqdisho waxay noqon doontaa mar badan oo soo laalaabato marka waxaan ka codsanayaa inay dareenkooda ay muujiyaan waxaan kale u mahadcelinayaa culimadii Soomaaliyeed oo maqashay baaqeena haddaan nahay tiimka cafis waad mahadsantihiin waxaana leeyahay culimada kale oo dibadda ku maqan inay ku soo dhiiradaan dalkooda ay ka qayb qaataan barnaamijka nabadeynta ee cafis ee Soomaaliya waa mahadsantihiin Soomaaliyeed walaalaha inaan isaafiyo sheekheena waa soo dhaweynayna insha Allah culimada Soomaaliyeed caalamka joogan inay wadankana u imaadaan ay diintana ay ka qayb qaadaan dadkeena waa diinta aad iyo aad u jeceliin sheekheena waa soo dhaweeyay sheekheena waa soo dhaweeyay dadkana Soomaaliyeed ha isaafiyaan ummadan markii Ilaahay dadka isaafiyaan Ilaahayna waa cafinaya الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدين الشيخ محمد كياوي سو دhow wadanka ka dhawaaw walaalo ay dhamaantii cafisi saamhaada nooyin eedeedan maadsantiin waxa kale aan u dirayaa cafis iyo nabadgelyo waxaan u dirayaa inta islaamka dhibaysay inta aan dhibinba waxaan leeyahay cafis aad iyo naga yihiin waana mahadsantihiin ku dheeraan maayo boqolkiiba boqol culimadiina haday hal mar inta salaada la aadin waxa rabaa kulli inta istaagtaan macal culimada oo xabadka isgelisaan hadeer bas cafiya adoo hadda la sameeyo waxa iga eegaya